Haweenaydan ayaa diiday dalabyo uu u soo jeediyey nin taajir ah. Ninkii taajirka ahaa wuu xanaaqay isla markiiba wuuna riixay. Qaxwaha nin marayay ayaa daatay wuxuuna ku daatay kabaha dhaadheer ee cusub ee haweenayda. Ninkii taajirka ahaa ma uusan raaligelin. Halkii uu ka raaligelin lahaa wuxuu tuuray lacag yar oo waraaqo ah oo uu siiyey ninkii qaxwaha lahaa, isagoo si kibir ah u yidhi kab cusub ayuu ku iibsan karaa, taasna way ku filan tahay. Haweenayda oo la oran jiray Mia ayaa ku sigatay inay qaraxdo. Markaas ayuu wiil dhalinyaro ah oo aad u qurux badan u soo foorarsaday. Wuxuu si taxaddar leh gacantiisa ugu tiray qaxwaha kabaha uga daatay, isagoo isticmaalaya gacantiisa shaarka. Ficilkiisa naxariista leh ayaa ka dhigay ninkii taajirka ahaa mid aad u fool xun oo laga qoslo. Mia waxay ku eegtay ninkii taajirka ahaa indho nacayb buuxa ka muuqdo. Ninkii taajirka ahaa wuxuu ku qasbanaaday inuu isagoo caraysan meesha ka tago. Wiilka caawiyey waxaa la oran jiray Tan. Ma uusan ogayn in haweenayda hortiisa taagan ay tahay bilyaneerad. Ficilkiisa wanaagga ah ayaa noloshiisa beddeli lahaa. Mia waxay fiirisay wejiga Itan markii uu madaxa kor u qaaday. Wejigiisa dhalinyarada iyo quruxdiisa hagaagsan ayaa qalbigeeda si degdeg ah u garaacsiiyey. Weligeed ma arag qof sidaas u qurux badan. Waxay maqashay inuu ku iibiyo boorsooyin sumad leh xarunta ganacsiga. Isla markiiba waxay ka soo saartay kaarkeeda bangiga shandadeeda waxayna iibsatay dhammaan boorsooyinkii dukaanka yaalay. Waxay rabtay inay kordhiso